nabadgelyo korkiina ha ahaato ku soo dhawaada xilli walba waqti walba iyo weliba goor walba barashada xisaabta daawade magacaygu waa Shiine Gastiir waxaan videogi ka horeeyay ku soo baranay magacyada iyo noocyada saddexagalada caawana waxaan bilaabaynaa oo aan videogan ku baranaynaa sida loo soo helo beedka iyo wareega saddexagalada area and perimeter of triangles waxaan si khaas ah videogan markaas ugu baranaynaa how to find the area and the perimeter of equilateral triangle sida loo soo helo beedka iyo wareega saddexagalka isla ekaha ah waxaan ognahay in equilateral triangle uu yahay saddexagal dhammaan dhinacyadiisu ay isla eg yihiin taas waan ognahay oo waxaan ku soo baranay videogii ka horeeyay sidoo kalena waxaan ognahay xaglihiisu dhammaantood in ay isla eg yihiin xaglihiisu dhammaantood way isla eg yihiin waa 60 degree halkana waa 60 degree halkana waa 60 degree markii la isku wada geeyana waa 180 degree dhinacyadiisuna way isla eg yihiin haddii halkan tahay 2 cm dabcan halkan waxay noqonaysaa 2 cm halkan waxay noqonaysaa 2 cm marka su'aasha inoo taala waxay tahay waxaan la siiyay halkan shaxankii oo dhinaciisa yahay 8 cm waxaan la yiri marka find the area and the perimeter of equilateral triangle raadi beedka iyo wareega saddexagalka isla ekaha ah waa hagaag markii aad raadinaysid beedka saddexagalka isla ekaha ah waxaad ku raadin kartaa laba qaabkan koowaad ee halkan nooga muuqda waa formulka dhammaan saddexagalada oo dhan markii aad raadinaysid beedkooda waxay leedahay area waxa lagu helaa area of triangle waxa lagu helaa base lagu dhuftay height oo loo qaybiyay 2 waxagaag marka waxaan ognahay shaxankan marka inuu dhammaan dhinacyadiisu ay isla yihiin dhinacna waa 8 cm dhinacna dabcan waa 8 cm base-kii waa 8 cm halkan ayaan mar labaad ku soo qoraynaa qaacidadii area waxa lagu helaa waan dhahnay base-kii waan haysanaa waa 8 cm soma lagu dhuftay height ma haysano oo loo qaybiyay 2 marka waxaan raadinaynaa height-kii ayaan doonanaynaa si aan u soo helno beedka shaxanka isla ekaha ah markii aad raadinaysid marka height markaa raadinaysid waxaa laga maarmaan ah inaad adigu aad qotamisid height-kii oo aad halkaas kaga dhigtid perpendicular kadib waxay sameynaysaa xagal quman shaxankii equilateral triangle wuxuu u qaybsamay 2 shaxan oo ah saddexagal leh xagal quman halkan waa 60 degree halkana dhammaantood waxay ahayd markii hore 60 degree halkan waxay noqotay marka hadda dhankan 30 dhankana waxay noqotay 30 halkan wali waa 60 degree halkana waa 90 degree halkana waa 90 degree 2 shaxan oo wuxuu noqday saddexagal leh xagal quman marka si aad u soo heshid height-ka waxaad haysataa fursad ah inaad isticmaashid aragtiinka Pythagoras dhankan iyo dhankanna base-kii ayuu u kala go'ay 2 dhinac ayuu base-kii u kala go'ay wuxuuna kala raacay labadii saddexagalka xagasho quman leh marka halkan waxay noqotay 4 cm halkan waxay noqotay 4 cm
laakiin beesku weli winoo jiraayo waa 8 centimeter. inaan soo helno markaa height-kan si ay noogu fududaato inaan soo helno beedka, waxaana laga rabaa inaan isticmaalno xisaabta la yiraahdo Pythagoras theorem. aragtiinka Pythagoras waxay leedahay a laba jibaaran oo lagu daray b laba jibaaran waxay la mid tahay c laba jibaaran. a laba jibaaran markii aad haysatid saddex xagal quman leh, dhankiisa ugu dheer waxaa la yiraahdaa luqadda af Soomaaliga shakaal, waxaana la siiyaa xarafka c. labadiisa dhinaca kale waxaa la yiraahdaa luqadda Ingiriiska leg iyo leg, waxaa la kala siiyaa xarafka a iyo b. laakiin midka doonta ayaad siin kartaa a, midka doontana waxaad siin kartaa b. bal tusaale ahaan aan dhahno dhanka aan raadinayno aan dhahno waa a, marka waxaan dhahaynaa a laba jibaaran oo lagu daray b laba jibaaran oo ah afar laba jibaaran waxay la mid tahay c laba jibaaran oo ah 8 laba jibaaran. a laba jibaaran oo lagu daray afar laba jibaaran waa mise waxa weeyaan 4 lagu dhuftay 4 waxaan ognahay inay la mid tahay 16. waxay la mid tahay marka 8 laba jibaaranna waa 8 lagu dhuftay 8 waxaan ognahay inay la mid tahay 64. halka markii aad joogtid ayaa waxaad dhahaysaa a laba jibaaran waxay la mid tahay 64 soo qaad, halkan soo dhig 64 laga jaray baad dhahaysaa. marka 16kan wuxuu wataa balaas, markaad soo qaadaysid balaastu waxay isku bedelaysaa minus, waxay noqonaysaa marka minus 16. marka waxaad dhahaysaa a laba jibaaran waxay la mid tahay 64 laga jaray 16. a laba jibaaran markaa waxay la mid tahay 64 laga jaray 16 waxay noqonaysaa 48. a laba jibaaran markii halkii aad joogtid raali ahaada, halka markaad joogtid waa inaad ka saartaa dhan walba waxaad ka saaraysaa xididka markaad ka saartid eedan waxaan jeegaa labadan iyo xididku isla baxayaan, waxay nooga soo dhex baxaysaa ee kaligeed 48 laga saaray square rootna wax weeyaan waxaan dhahnaa square root of 48 waa imisa waa 6.92. waxaan dhahaynaa 6.92. halkaas ayaa waxaan kusoo helnay dhinacii aan raadinaynay oo ahaa height-kii waxaan ogaanay inuu yahay marka 6.92. halkan aan iska tirtirno marka height-kii waan soo helnay, waxaan dhahaynaa 6.92 8 lagu dhuftay 6.92 oo loo qaybiyey 2 waa imisa. marka calculatorkan soo qaadanaynaa, waxaan oranaynaa 8 lagu dhuftay 6.92 waa imisa waa 55.36. waxaad u qaybsaa 2 waa 27.68. 27.68. marka waxaan dhahaynaa area of equilateral triangle waxa weeyaan 27.68. qaabkaas waad mari kartaa oo waxaa ku saacidaysa xisaabta loo yaqaano Pythagoras theorem. waxaad kaloo sameyn kartaa qaabka labaad oo aad mar walba ku isticmaali kartid markii aad aragtid equilateral triangle-ka. qaabkan wuxuu leeyahay aan mar labaad halkan kusoo qoray area of equilateral waxaa lagu helaa s laba jibaaran
oo loo qaybiyey 4 oo lagu dhuftay square root of 3 haye s waxa weeyaan waa sideka ayay u taagan tahay sideka waxa weeyaan markaa waxa weeyaan 8 waa 8 laba jibaaran oo loo qaybiyey 4 oo lagu dhuftay square root of 3 haye 8 laba jeer isku dhacday waa imisa 8 laba jibaaran waa 64 waxa dhaysa marka area wax la mid tahay 64 loo qaybiyey 4 oo lagu dhuftay square root of 3 samaha 64 waxaad qaybisaa 4 waxaad dhigi 64 loo qaybiyey 4 waa 16 area marka waxay la mid tahay 16 lagu dhuftay square root of 3 halkaas ayaa jawaabta ku soo heshay haddii rabtid inaad xaqiijisid oo ay timaado 27.68 oo almost ah 28 waxaad samayn kartaa waxaan soo qaadanaynaa calculatorkii waxaan dhahaynaa 16 lagu dhuftay square root of 3 waa inay noo saarto jawaabtii aan soo helnay markii hore 27.7 waxay la mid tahay 27.7 almost waxa weeyaan 28 centimeter samaartid 27.68 centimeter square labada qaab ayaad isticmaali kartaa markii aad haysatid equilateral triangle-ka bal aan u gudubno marka perimeterka waxaan dhahnay waxaa lagu helaa sideka oo lagu dhuftay 3 dabcan waxa weeyaan sidekan waa 8 centimeter sidekan waa 8 centimeter sidekan waa 8 centimeter marka waa 8 lagu dhuftay 3 waxa weeyaan perimeter wuxuu la mid tahay 8 lagu dhuftay 3 perimeter marka waxay la mid tahay 24 centimeter sidaas ayaad ku soo saari kartaa perimeterka labadan qaabna waxaad ku soo saari kartaa area-ga ama bedka waxaan rajeynayaa videogan gaaban inuu ka anfacay mawduucan caawa ka hadlayno intii aan video la mid ah ku kulmi doonana waxaan idin si dhaafayaa nabaddiino